بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaalida meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada channelkiina cusub ee ku saabsan cryptocurrency iyo teknoolajiyada kala duwan. asxaabta waxaan oran lahaa insha Allah channelkan waa channel cusub. channelkii hore waxaan ku duubay video fara badan oo ku saabsan cryptocurrency laakiin waxaan go'aansaday inaan sameeyo channel kale oo ka duwan oo kii hore u daayo waxyaalihii aan ugu talagalay kan cusubna inaan u soo wareejiyo waxyaalihii hore aan kii hore ku sameeyay inaan insha Allah step by step kan u soo wareejiyo iyo videoyada soo socda ee ku saabsan cryptocurrency iyo teknoolajiyada kala duwan ee ku xiran. marka insha Allah channelka dee support siiya, subscribe-ka ii saara, gambaleelkana ii taabta si uu u noqdo channel faa'iido leh si ay dadka oo dhan ka faa'iideystaan siina share gareeya ha laga faa'iideystay coin market cap waxa weeye website muhiim ah oo aad ka ogaan doontid waxyaalo fara badan oo ku saabsan cryptocurrency-yada kala duwan ee dadku ka ganacsadaan. halka waxaad ku arkaysaa market cap waxa weeye lacagaha galay cryptocurrency ilaa iminkadan, lacagaha cryptocurrency galay waqtigan aynu joogno waxa weeye 1 trillion yaa lambar caadi ma aha. 1 trillion 694 billion 715 milyan 270,991 waa lambar cajiib weeye. lacag aad far badan baa gashay 24 saacadood ee dhaafay waxaa la geliyay intaasoo lacag halkaas ka aragtaa 188 bilyan baa la geliyay. bitcoin-ku isagaa ugu sarreeya meesha, isagaa hogaamiya 61.4% weeye, isagaa meesha dhan hogaamiya. inta kalena waxaa la dhahaa altcoin. maanta waqtigan xaaliga aynu joogno cryptocurrency coinanka adduunka ku jira ama suuqyada adduunka ku wareegaya ee la kala gato waxa weeye 8,532. marka aan bilaabay inaan fahmo cryptocurrency iyo suuqyada kala duwan waqtiga coinanka la kala iibsado ee ku jira suuqyada kala duwan waxay ahaayeen ilaa 1,500 coin bay ahaayeen. iminkan waxay marayaan 8,532 coin. maalin kasta waxaa kusoo kordha coinan cusub. suuqyadaaba kasii daran, suuqyadu waa ka badan yihiin, suuqyadaaba ka badan. suuqyadu waxay marayaan 43,000 oo suuq iyo dhowr boqol. suuqyada qaar ka mid ah ma aha suuqyo waaweyn, waa suuqyo yar oo iyaga laftoodu dee soo koraya oo ku cusub meesha oo aan wax hanti saa haysan oo aan power iyo awood haysan, laakiin way jiraan suuqyo waaweyn oo dadku ka ganacsadaan. website kale jira isla coindesk waa website kale isna muhiim ah. waxaad kala socon kartaa akhbaartii ugu dambeysay cryptocurrency-ga dad news ku dhufatid, matalan news akhbaarihii ugu dambeeyay tviyada iyo akhbaaraha ku saabsan cryptocurrency-ga. halkanna waxaad geli kartaa video kala duwan oo ku saabsan blockchain technology-da iyo exchange-yada akhbaartoodii, wararkoodii iyo coinanka cusub ee suuqa soo galay iyo ragga ganacsatada ee kusoo biiray. maalin kasta dad baa kusoo biiray meesha, rag waaweyn oo ganacsatada kusoo biira oo ka faa'iideysta ganacsiga. dabcan way badan yihiin website-yadu, laakiin labadan baan aad u taabacaa. labadana waan yani waxaan ka hor lahaa la socda isha ku haya markasta. hadda aad adeegtid ninkan warkiisu adduunka oo dhan buu gaadhay. maandhowta waxaa laga sheekeysay ninka la dhaho Elon Musk. waa nin America jooga oo ganacsato ah, waa ninka haysta kambaniga Tesla. ninkaas wuxuu geliyey lacag la qiimo ah 1.5 bilyan ayuu geliyey bitcoin-ka. dabcan dadku yaabayaan lacagtaasoo dhan muxuu geliyey bitcoin. dabcan sabab baa ka dambeysa. sababta waxa weeye ninkan waxaa la taliyaal ama mustashaariin ayuu leeyahay oo dad maaragtay mustashaariin fara badan buu leeyahay oo ku takhasusay ganacsiga iyo businessyada kala duwan. rag uu lacag siiyo waxaa laga yaabaa inuu sanadkii siiyo 1 milyan. dhowr nin baa laga yaabaa inuu mid kasta siiyo sanadkii 1 milyan. waa nin yacni billionaire wey. marka nimanka la taliyaasha ama mustashaariinta u ah iyagaa u keenay fikradda in uu 1.5 bilyan geliyo bitcoin, laanna way arkeen rag fara badan oo ay ka mid yihiin Bill Gates ama Richard Branson. raggaasoo dhan lacago fara badan bay geliyeen, lacago fara badan oo ay ka heleen. marka 1.5 bilyan isaga waxba ma aha, laakiin lacagta wuxuu kusoo celinayaa waqti yar buu kusoo celinaya. waxaa laga yaabaa inayba qaato haddayba dhowr week qaadan inay bil gudaheed uu kusoo celiyo lacagta in ka badan. laanno ragga la shaqeeyana waa rag businesska yaqaan oo rag yaqaana ganacsiga si fiican u yaqaan. warkaas war fog ma aha, waa February 8 ma foga, maandhowta buu ahaa. aynu ku noqono coin market cap-ka. halka waxaad ku arkaysaa coinanka ku jira suuqa waxaa hogaamiya bitcoin. saynu u naqaanay weligeenba bitcoin baa ugu horreysay iyadaa meesha leader u ah. haddaad eegtid market cap lacagta la geliyey bitcoin, lacagta ilaa imikana la geliyey bitcoin lacag yar maaha, laanno iyadaa saynu sheegnay iyadaa 61.4% iyadaa hogaamisa meesha oo dominant ah. 1 trillion ayaa la geliyey iyo wax fara badan. waxaa ku xiga ethereum 219 bilyan weeye, ma gaari karo weli uu ka fogay xoogaa bitcoin-ka. tartan weyn baa lagu jiraa
coinkan Binance BNB meesha kuma uusan jirin, hoostuu ahaan jiray, laakiin darajadii saddexaad buu u booday markiiba, sababtoo ah market capkiisii kor buu kacay, aad baa loo gataa. taasuna waxay kutusaysaa inuu pricekiisii inuu noqday 248. dhowr week ka hor wuxuu ahaa 20 ilaa 15 ilaa 20 buu ahaa dhowr week ka hor ilaa 20. markay dadku oran jireen BNB meel fog gaari maayo, maanta wuxuu gaaray 248. beri dhoweedna wuxuu ahaa 20 ilaa 30 buu ahaa. qofta waqtiga ka xaabsan lahaa xoogaa maanta lacag aad fara badan buu heli lahaa. waa number weyn min 20 ilaa 248 ma yara. coinkan laftiisa hoostuu ka yimi, coin ma ahayn, coin la yaqaanay ma ahayn, laakiin hoostuu ka yimi. waka hadda wuxuu marayaa number 4kii. waa tartan cajiib lagu jiraa meesha tan. coinanku waa fara badan yihiin, waxay u baahan yihiin waqti inaynu mid kasta aynu waqti gelino oo ka sheekayno nidaamkiisa iyo qaabka u shaqeeyo iyo kambaniyada uu ku xidhan yahay iyo developerska ka shaqeeya iyo IT-giisa iyo sumcadda uu ku leeyahay adduunka. mid kasta wuxuu u baahan yahay inaynu mar waqti gelino, khaasatan kuwa ugu sarreeya adduunka ee ugu muhiimsan inaynu mar ka sheekayno oo mid kasta xoogaa macluumaadka ka bixino insha allah. haddaad eegtid maalin kasta suuqa waxaa soo gala coinan kala duwan baa soo gala suuqa. cryptocurrency-ga waqtigan xaaliga ah waxa weeye aad baa loogu soo biiray, kambaniyo fara badan ayaa soo galay, ganacsato fara badan ayaa soo galay, dowlado ayaa soo galay iminka tartan ku jira, sababtoo ah blockchain technology door weyn bay ka ciyaartay. waa technologyda soo socota ee loo guuri doono. blockchainka iyo cryptocurrency-gu waxay noqon doontaa technologyda loo guuri doono. waxa dhan waa laga tegayaa fiat manigan oo dhan, lacagaha waraaqaha ah iyo coinankan waxa dhan waa laga tegayaa oo aynu iminka ku tacaamulo, waa laga guurayaa. waxaa loo soo socdaa casri cusub oo ah casriga cryptocurrency-ga ama digital money-ga. qofku iminka ayaa fiican in wixii barto oo fahmo, laanna qofka maanta cilmigaa barta waxa weeye dadka in badan buu ka horeeya. waxaa imanaya waqti aad arkaysid dadkii oo meel kasta oo ay gashay digital crypto lagu kala sarifanayo, wallet to wallet lasu bedelayo. haddayba socoto, haddaynu aragnaa day and night dadku say u ganacsadaan oo uga faa'iidaystaan oo isugu diraan oo wax ku gataan. badeecadaha lagu gataa iminka. hadda kambaniyada adduunka ugu waaweyn, kambaniyo badan baa ictiraafay, kambaniyo fara badan oo waaweyn ayaa lagu kala qaataa bitcoin iyo ethereum, sida matalan kambaniga apple oo kale ama amazon oo kale. kambaniyo fara badan ayaa jira oo lagu kala qaato bitcoin. halkaas baad ka arki doontaan suuradda, ayaad ka arki doontaan inta kambani ama shirkado lagu kala qaato cryptocurrency. kuwaasna xaqiiqatan waxaa ka dambeyn doona kambaniyo kale iyo shirkado fara badan oo soo gelaya majaalka cryptocurrency-ga in ay badeecadooda ku iibiyaan ama ay ku iibsadaan cryptocurrency. maanta oo kale matalan haddaynu eegno suuqa coinanka soo galay, dabcan maalin kasta coin baa soo gala, maalin kasta dad baa coinan samaysta kala duwan oo cusub. bal maanta aynu fiirino yaa soo galay, inta soo gashay suuqa. kan waxaynu eegi doonaa coinanka cusub ee kusoo biiray suuqa. halka haddaad aragtid waxa ku qoran today, waa maanta. suuqa maantay soo galeen coinankan oo dhani. kan shalay buu soo galay 1 day ago, kan 2 casho soo galay ka hor. marka adigu xoogaa ilaa maaragtay 3 casho ugu dambeysay baan ku tusi doonaa. marka qaar baa kusoo galay qiimo aad u fara badan. hadda kan Everest ID oo kale waxaad eegaysaa market capkiisa daawo $22,000 oo 3 casho ugu horreysay. yani ma xuma marka la eego. haddana qiimihiisu wuxuu marayaa $30. intaba kusoo galay nu eegno. coinkan suuqa wuxuu kusoo galay waka wuxuu soo galay 3 casho ka hor, 2 casho ka hor may ahayd. wuxuu kusoo galay $16. intaasuu kusoo galay. macnaha price sare ayuu kusoo galay marketka. mathalan haddaynu example yar qaadano coinanka mid ka mid ah ee suuqa soo galay maanta, kuwani weli moogtahay weli ma u xisaabin market capkiisa, weli lama xisaabin. aynu eegno mid ka mid ah oo soo galay dhowaan. kan mathalan 2 casho kor buu soo galay ka hor. blockchainkiisu wuxuu yidhi Binance coin, Binance buu ku dhex jiraa blockchain coin. kan ka sareeya waa aragtaa Ethereum ku hoos jiraa. badankood waa saan sheegay Ethereum bay hoos galaan badankood. Ethereum waa wax culus weyn. Ethereum waa blockchainkiisu caadi maaha. hadda balday badankood waa Ethereum badankood waa aragtaan. kan wuxuu ku leeyahay own blockchain gooni uu leeyahay. kan qaarna blockchain gooni, laakiin badankood Ethereum weeye. bal hadda kan aynu eegno mid ka mid aynu eegana oo soo galay waa kan 2 casho ka hor weeye. wuxuu la baxay cajiib chicken kebab finance. wuxuu la baxay chicken kebab, waa digaag weeye. chicken kebab buu la baxay. volume culus buu haystaa, waad aragtaan lambar culus weeye. yani 2 casho marka la eego ma xuma xaqiiqatan. marka eego lacagta yar la soo geliyay ma xuma. pricekiisu $5 weeye waqtigan xaaliga aynu joogno. haddaynu dib u baadhno suuqa inta buu kusoo galay, waxaad eegaysaa historical data ad eegaysaa, ma foga, waa 2 casho ka hor. wuxuu kusoo galay $11.94 ayuu kusoo galay priceka. iminkana wuxuu marayaa $5. soo digi, waad aragtaa halkaa wuxuu ku leeyahay 43.37% ayuu dhacay. marka way jiraan coinan kusoo gala qiimo yar oo markiiba booda, laakiin dabcan dad baa ka shaqaysta. waxaad u aragtaa jaarkiisa waka hoos kusoo daadigay. way jiraan coinan kusoo gala qiimo yar oo marka ay soo galaan exchange-yada waaweyn sida matalan Binance oo kale
iyo exchange-yada caalamiga ah ee qiimaha culus markay soo galaan markiiba waa la kala boobaa oo dee dad khatara ku jira meesha oo jaanis ba ku siinayn oo markiiba la boodaya tecoin baynu aragnay maalmihii dhowaato iyagoo kasoo galay santiyo $3-4 markiiba u booday markiiba lala booday oo malaayiin laga helay way jirtaa marka qofku inuu dee suuqyada iska ilaaliyo weeye uu ishana suuqyada inuu isha ku hayo markuu ku jiro suuqyada waaweyn horena waa idin soo dhigay linkiga xagga hoose linkiyada ku saabsan exchange-yada meesha laga galo oo dhan sida mathalan exchange-ka Binance oo kale waan soo dhigay hoosta ka faa'iidaysta exchange-ka Binance videoyada soo socdana si fiican baynu u sharaxi doonaa weliba gaar ahaan exchange-ka Binance gaar ahaan exchange-ka Binance baynu culays weyn saaraynaa sida looga ganacsado sida looga faa'iidaysto sida lacagaha la isugu diro sida security-ga loo xidho mobilkaaga lagu xidho ama Google Authenticator lagu habeeyo waxyaalahaas oo dhan insha Allah casharada soo socdaynu fahmi doonaa qaabka uu u shaqeeyo iyo waxyaalaha kale ku saabsan insha Allah waa saan idin sheegay insha Allah channel channel cusub soo dhawaada subscribe kana hayga ilaawin kambalelkana taabta wax kasta oo cusub oo cryptocurrency-ga ku saabsan si insha Allah aad uu markiiba idin soo gaadho oo aad uga faa'iidaysataan aad u mahadsantihiin barakallahu fiikum assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh